الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شعبي شغل بمقل كي يريد جاري مالي وناكسن وحنا عبد المجيد الشيخ عثمان وحنا قال شعتان رويال تالنتي سبورتس طبعا دورنا برنامج قodobada kaga bogo doontaan inta hawada ku jira waxa kamid noqon doona lambarka uu Philip Coutinho dalbaday inuu Barcelona u xirto kadib markii Antonio Griezmann oo qaatay lambarka 7aad barnaamijka ayaan idinku soo gudbin doonaa shaxda laga yaabo in Liverpool ay ku ciyaarto kulanka ugu horeeya Premier League barnaamijka ayaad kaga bogo doontaan inta hawada ku jira Frank Lampard oo go'aanka madabeesha ka gaaray Angola Kante barnaamijka ayaad kaga bogo doontaa saaxiibayaal Ronaldo Koeman oo kulankii ugu horeeyay maanta hogaamin doona Barcelona iyo faafahinta kulankaasi ayaan idin soo gudbin doonaa hadduu sareeyo saamax waxaad kala maqli doontaan intuu barnaamijka hawada ku jira hordhaca Liverpool vs Leeds kulanka xamaasada waalida tababarayaasha khibradda isku adeegsan doonaan iyo shaxaha macquulka ayaad kaga bogo doontaan qodobadii hore soo maqasheen oo faahfaahsan ku soo dhawaada saaxiibayaal aan ku bilaabnay qodobka ugu horeeya barnaamijka ciyaaraha lambarka uu Philip Coutinho dalbaday inuu u xirto Barcelona kadib markii Antonio Griezmann oo qaatay lambarka 7aad xidiga kooxda Barcelona Philip Coutinho ayaa lagu soo waramayaa inuu maamulka kooxdiisa uu weydiistay lambar cusub kadib markii Antonio Griezmann oo qaatay lambarka 7aad Antonio Griezmann ayaa si lama filaan ah u qaatay lambarka 7aad kaas oo Philip Coutinho ugu qaatay inuu ka hor istaaga inta uu ka tagin kooxda Barcelona wargeyska Mundo Deportivo ayaa sheegaya in Philip Coutinho uu doortay lambarka uu xiran doono kooxda Barcelona xilli ciyaareedka dambe xidiga Philip Coutinho ayaa la filayaa inuu sii joogi doono kooxdiisa Barcelona maadaama uu tababare Ronaldo Koeman qorshihiisa ku darsaday xidiga reer Brazil kadib markii Antonio Griezmann uu qaatay lambarka 7aad xidiga Philip Coutinho ayaa dalbaday lambarka 8aad kaas uu baneeyay xidiga Artur Mela kaas oo ku biiri kooxda Juventus Frank Lampard oo go'aanka madabeesha ka gaaray Angola Kante tababaraha kooxda Chelsea Frank Lampard ayaa xaqiijiyay in xidiga qadka dhexe Angola Kante sii joogi doona kooxdiisa una ka tagi doonin xagaagan Kante ayaan ciyaarin inta badan kulamadii Chelsea xilli ciyaareedkii hore sabab la xiriirta dhaawac joogto ah waxaana lala xiriirinayay kooxda Inter Milano xagaagan inuu ku biiro Lampard oo la hadlay BBC ayaa yiri waxaan u maleynayaa koox walba oo adduunka ah inay si aad u doonayso Angola Kante anigu waxaan arkayaa wararka la xiriira kooxo kale waa xidig cajiib ah shaki la'aan ma doonayo inaan waayo waxa uu door muhiim ku leeyahay garoonka ama qorshahayga waxa iska cad in mar walba la hadlo xidigaha weerarka kooxda laakiin Angola Kante waxa uu shaqo cajiib ah ka qabtaa qadka dhexe ayuu hadalkiisa sii raaciyay xilli ciyaareedkii hore waxa uu la dhibaatoonayay dhaawac laakiin hadda waxa aan aad ugu faraxsanahay inuu taam yahay xilli ciyaareedkan shaki la'aan waxaan doonayaa inuu Angola Kante sii joogi doono xagaagan garoonka uu baaqi ku sii ahaan doono ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyay macalinka kooxda Chelsea Frank Lampard Liverpool vs Leeds kulanka xamaasada waalida ah tababarayaasha khibradda isku adeegsan doonaan iyo shaxaha macquulka ah Liverpool oo difaacanaysa horyaalka Premier League koobkiisa ay haysato waxa ay u bilaabanaya garoonka Anfield Road kaas oo ay ku soo dhaweyn doonto kooxda xamaasada waalida leh ee Leeds United taasoo ka soo laabatay horyaalka iyadoo si weyn u dhisan isla markaana hubaysan ciyaartooyda wanaagsan iyo jamaahiir xamaasad leh wadata tababaraha Jurgen Klopp iyo xidigihiisa waxa ay ku guuleysteen horyaalka Premier League laakiin Leeds United iyaduna guul la'aan ma aysan ahayn waxa ayna soo qaaday horyaalkii heerka labaad ee Championship-ka 16 sano kadib ayay Leeds United tijaabinaysaa nolosheeda heerka koowaad waxaana hormuud u ah tababaraha rugcadaaga ee reer Argentine Marcelo Bielsa balse Liverpool iyaduna soo afjartay 30 sano oo koob la'aan ah ayaa horyaalka Premier League waxaana guushan ku hogaaminaya guushaasi ku soo hogaamiyay Jurgen Klopp waxaana u qaaday Premier League iyo Champions League kooxda martida loo yahay Leeds waxay ciyaareedkii hore jibisay rikoor dhibcaha waali ay ku qaaday horyaalka Premier League kooxda ku soo xigtay Manchester United 18 dhibcood ka horeyso haddaba xogta kulanka
Liverpool vs Leeds United tartanku Premier League isbuuciisa koowaad waqtigu 1 saac bar habeenimo caawa saacada markay soo dul istaagto saacada geeska Afrika garoonku waa Anfield wararkii ugu dambeeyay ee labada kooxood Liverpool ayaa waxa ay horyaalka Premier League ku soo guuleysatay iyadoo haatan difaacanaysa haddaba shaxaha macquulka ee labada kooxood Liverpool waxa ay ku soo gali doontaa Alisson Becker Alexander Arnold James Van Dijk Robertson Keita Fabinho Wijnaldum Salah Firmino halka Leeds United laga yaabo Melzero Alinda Coach Dolore Coste Hampton iyo Philip Kilich iyo Harrison Rodrigo kulanku dabcan kulankaasi waxa uu soo dhici doonaa markay caawa saacada soo dul istaagto todobada habeenimo iyo qadar 30 daqiiqo geeska Afrika ama halka saac iyo qadar 30 daqiiqo waa kulanka furitaanka horyaalka Premier intaa waxay inooga dhan qodobadii ugu waaweynaa ama wixii ugu waaweynaa sportiska waxaan ahay Cabdimajid Isaaq Ismaan fadlan janaalka subscribe noo saaro gabalaalkana furo si aad u daawataan muuqaaladeena intaan muuqaalka xiga ku kulmi doona waxaan idinka tagay siyaasi nabadgelyo